saddex qareen oo ka mid ah ururka qareennada Somaliland isla markaasna kala ah Daahir Maxamed Faarax, Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan iyo Maxamed Cali Careef ayaa maanta shaqadii qareennimo laga caydhiyay. Qareennadani oo warfidiyeenka la hadlay ayaa sheegay in gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Professor Aadan Xaaji Cali uu soo saaray warqad uu kaga xayirayo shaqada. Qareennadani ayaa warfidiyeenka u sheegay in gudoomiyaha maxkamadda sare uu soo farageliyay arrimo aanu awood sharci u lahayn, waxaana halkaasi ka soo jeediyeen in sharciga iyo dastuurka dalka marka waxaanu sheegnay caqabado ka jira maxkamadaha oo wali aanu ka muujinay iyagoo qareenno horena ay wadanka ka baxeen qaarna shaqada joojiyeen ayaan anagu wali ka muujinay hal la soo gaaro cid dibta maxkamadaha u sabaysaana waa gudoomiyaha maxkamadda sare tii waxay keentay maanta inuu gudoomiyihii maxkamadda sare si aan xeerka waafaqsanayn oo sharcigu u ogolayn uu yiraahdo qareennadaasi shaqadii baan ka joojiyay taasi oo ah xeer ka hor imanayso sababtoo anagu waxaan qareenno xeer baarlamaanku aasaasan maamulkayaga cidda ruqsadda nasiisayna waa iyaga waxa la gudida ruqsad bixinta iyo anshax marinta qareennada cidda shaqada ka joojisa qareennada waa iyaga meel alla meel ay maxkamaddu ka soo gasho ma jirto taasi waxay ku sheegaysaa markaa in gudoomiyihii maxkamadda sare markii horeba fargelintii garsoorka uu ku hayay xeerka aan waafaqsanayn ay tana la mid tahay waxa ruqsadda siiya maxay guudida ruqsad bixinta iyo anshax marinta sida uu dhigayo qodobka sida uu dhigayo xeerka qareennada xeer number 30 gudidaas ayaa awood u leh ruqsadda siiso qareenka maxay heeday kana qaado oo ruqsadda ka laasho maxkamaduna ma maamusho maxay heeday mushaharna ma siiso shaqaale kamidana ma aha qareennadu doorkoodu waxa weey waxa hoostaan guddiga ruqsad bixinta iyo anshax marinta haddaba guddidii maxay heeday annagana khuseysay shaqa nagama joojin laakiin maxkamaddu annagu inaan shaqaalanahay inaan qareennahana kala saarto annagu waxaan qareenno madax bannaan oo ummadda u adeega runtii waxaana muhiim ah maxay heeday annagu waxaan ka hadalnay oon ka cabanaynay cadaalad darro ka jirta maxay heeday garsoorka qofkuna wuu caban karaa waana waajib diiniyana waxa weeye anagu maxay heeday gacanta wax kaga qaban karno dawladii manihin laakiin anagu carab baan kaga hadalnay oo dulmiga waana xaq in laga hadla oo lamana caburin karo qofku xaq buu leeyahay dulmiga inuu ka hadlo marka anagu waxaan maxay heeday marka qadaadkii aanu markii horeba cabashaydeeda aanu ku muujinaynay ee uu dhinac marayay ayay horta tan maanta cadaysay anagu hay'ad madax bannaan baanu nahay ururkan qareennadu hoggaan baanu leenahay gudida bixin baa jirta oo annaga waajibaadkayaga iyo anshax marintayada qaabilsan dhammaan wixii oo dhan dhinac buu iska dhigay waana caburin iyo toojar imika uu doonayo inuu qareennada kolba maalinba labada hadla iyo maalinba saddexda hadla inuu yiraahdo shaqo joojin iyo ayaan hal dacwada loo dhiibanin uu shaqo joojin ku sameeyo aan ciidaba hadla saylan wuxuu rabaa isagu qareenno saylan ah oo aan hadal intaasuu rabaa taasna anagu midaan yeelana dee maaha Axmed Nuur Ciise, Telefishinka Bulsho, Hargeysa.